magac Soomaaliyeed wey marka isagu duqtii Soomaaliyeed waxa Sheekh Gurgura liga waa gobolka Sanaag ku aasan yahay qabriga Sheekh Gurgura liga Sheekh Gurgure waxa iskale magacan Soomaali oo dhan isaguna waa duqtii Soomaali oo dhan weey kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idinkiiba meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo shabakada wararka ee mahiganews.com ay idinka soo diyaarisay barashada deegaanada ay ku duugan tahay taariikhda aabayaashii hore ee ummadda Soomaaliyeed oo khaas ku ah gobolka Sanaag gaar ahaan daawadayaal waxa barnaamijkan markii ugu horeysay oo si toos ah idinku daafuraya si aad uga ogaataan goobta uu ku duugan yahay Allah u naxariistay qabriga ama xawaalka Sheekh Gurgure madaxweyne dir oo kamid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya anu halkan koobisteed ka imaanay marka halkan aad baa ka dhigi jiray tabadna beertan nin baali marka beerta laga maqnaa halkan la xaadi jiray alla bariga la dhigi jiray qabrigana waxa lagu sameeyay jiray xasas ya inta heeb kala cunbaa ku dhigi jiray yaa ku aasan marka qabriga ku aasan Gurgure waa sidaan odayadii noo sheegay xawaasha Gurgure Gurgure baa yahay waxa loogu bixiyay baa xawaalka marka odayada hore weey waxay yiraahdeen xawaalka wuxuu ahaa Gurgure waxa tabadna saasa Gurgure loogu Gurgure madaxweyne dir Gurgure waxa maanta farxad ah maanta waa maalintii ugu horeysay ee aan booqasho ku imaado iyo waxaan joognaa ilaahay qabriga ha u nuuro oo ilaahay maxaan ku raadayay darajaatul ula fil janna hageeyo waa xawaalkii Gurgure meesha gurgur baa la yiraahdaa gurgur ku aasan yahay waa daal hoosteeda maxaan ku ama surad burta surad la hoosteeda waan soo siyaarnay sheekha ilaahay dambigiisa ha dhaafo ilaahay darajooyin ulaha maxaan ku raadayay jannatul ula hageeyo marka aynin waxaan u sheegayaa dadkii maxaan ku raadayay qabiilkiisii Gurgure oo aniguna ku abtirsado inay ogaadaan de sheekh oo ka warhayaan oo halka ay ku ogaadaan hadii ay beedankeedii soo duceeyaan oo ay de maxaan ku raadayay soo ziyaartaan hadii ay beedankeedii leeyahay waxaan ku yiri marka hore iska waxa dirta beeraha oo dadku iska yaqaanaa tani ma hub lagu dagaalamo halkan Gurgure baa la yiri way anagu ugu dhimi halkanina ceel baa la yiraahdaa Gurgure baa la yiri ceelkaasay magac kula baxday Gurgure la yiraahdo aroor baan anagu barigii hore ahayno waxaan arki jiray iyada oo meesha alla bariga la soo keenay alla barigaas hilibka la keeni jiray caanaha la keeni jiray doortada la keeni jiray shaadiriga lagu karin jiray geedkan iyo dhirtana la harsan jiray waxaan u garaadsanay iyadoo la yiraahdo waanu garaad yeelan macnaha ama ku weynaanay waa ka Gurgure lagu alla bariyayo roobku waa dacaya wala xaadi jiray marka alla bariga ka bacdigi dawaa weynaano waa degno beeraano ku yeelano rag waa la xaadi jiray kuriyaano ku yeelano lama deen alla barigi laga deen way ismaatankii iyo alla barigi laga deen habeenkii sheekhaas marka la xaado ama habeenkii waa leeydin jiray buu yiri marka la xaado ee lagu alla bariyo roobka dii jiray hadalkii baa laga duubado ha marka la xaado oo alla bariga la dhigo alla bariga dabadii shaadaliga iyo caanaha iyo cuntada marka la cuno baa la xaadi jiray marka la xaadona wax la oran jiray roobka hadaayo roobku ilaahay amarkiisa ilaahay waa ila roobka amraya haddana alla wuu qaadi jiray waa dii jiray hadiya jeeraale waxaan garanayaa aniga oo mudooyin garanay marka odaygaas Saalax Ismaaciil baa maalin hadalka halka wuxuu yiri waxaan rabaa ceelkaas oo biyo hoos u dhaceen oo beertii sida iga tahay in mishiin lay keeno
in haddii allaba kuu roon yahay dee shiikhaas meesha ku aasnaan jiray iyo beerta iyo wuxuu biyi waa ka go'ay alla barigii la isugu iman jirayna biyi waa ka go'ay waxaan doonaya in mishiin lay karo biyi hoos bay u dhaceen laakiin anigu intaydaa waxaan u leegahay ama odaygaa dee iga weyn wuxuu yidhi maalintaa uu khudbadaynaya saalax ismaaciil waxaan hay 85 jir waxaan u garaadsaday buu yidhi soo mudhe oo alla bariga dhiga oo shaadaliga dhigo la yidhaahdaa beertiisuna dee taa tahay saa ugu oodan tahay ilaa ceelka waa oday la yidhaahdaa haddaa roobku da'aya بسم الله الرحمن الرحيم وطن حباشي gure dadkii meesha degaankii aniga wareystay baahiday qabaan in la hoos loo eego waa muhiim generatorkii biyaha ceelka ka soo tuuray ceel baa halkan lagu deganaa dadka degaankii ceelkaasi ku deganaayeen ka cabi jireen ceelkiina hoos buu u dhacay marka wuxuu u baahan yahay ceelkii in la dhooba qaado wixii sadaqaadii waalidka loola soo baxayaa awowgiin nimankaasi inaad ku soo caawisaan oo ceelkaasi oo u qodaan iyo riigga iyo muxuu ahaayay allahumma salli ala maxamed iyo generatorkaas marka khayr insha Allah walaal marka haddii alla yidhaa wixii sadaqa loo soo ururinayo meeshaasina dhisme u baahan tahay in la dhiso sida xabaalaha kale qudbiyada kale loo dhiso dadkii deegaankiina waa kuwa baahidoodii sheegay ceelkaasi laga cabayey ceelkaa laga cabi jiray xoodad iyo xoolaba ka cabayeen ducada sheekhu ku socotay waa sadaqo degaankii intaasay magaranaysaa nimankaa dee ilaaliya xabaasha ee beertoodii ay ku dhex taallaaba ugu baahi badan dadkii inay ceelkaa loo dhoobo qaado generatorkana loo keeno insha allah marka ugu horeysa xabaashana wax laga soo qabto marka insha allah bilaahi tawfiiq